qisadan waxaan u malaynaa inaa hadda ka hor maqasheen nin ganacsado ah oo degan Texas wuxuu furay maqaayad. Maqaayaddii uu furay wuxuu ugu magac daray madaxweynaha Donald Trump ee hadda xukunka haya. Ninkii isaga ahaa maxaa ku dhacay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waa salaamantiin meel kastaa joogtaan. Waa annagii mar kale isku soo laabanay. Ku soo dhowaada barnaamijkeena Danjir Show iyo wararkii ugu xiisaha badan, ugu yaabka badan, ugu cajaa'ibka badan, ugu qosolka badan. maqaayadda uu furay waa tan ah. maqaayaddan uu furay meel la yidhahdo Belleville oo ku taala Texas uu ka furay. maqaayaddiisa arkaysaan waxaa loogu magac daray Trump loogu magac daray Trump Burger loo bixiyey ilaa iyo gudaha meel walba calankiisii iyo magaciisii iyo sawirkiisii uu meel walba lulay. intaas keliya kuma ekaan. ninkan wuxuu maqaayaddii koobaad uu furay ahayd middaas. mid kaluu furay iyadana wuxuu ugu magac daray madaxweynaha. wuxuu u bixiyey iyada midda kale waxay ahayd Trump Cafe u bixiyey. middan Trump Burger la yidhahdaa, midna Trump Cafe ahayd. midba magacuu u bixiyey oo Trump raacsan. magaaladii meelo badan oo kala duwan uu ka furay. isku sidaas hadda arkaysaanoo mid walbana sawirradii madaxweynaha iyo magaciisii iyo meel walba kusoo dhejiyey. inuu intaas ku ekaadaa u malaynaysaa? kuma ekaan. cunadii maqaayadda laga cunaayey wuxuu ku sameeyey madaxweynaha. waatana hamburgerkana hadda arkaysaan waxaa ku shaabadaysan magaca madaxweynaha. calan dhexdaa laga suray. Trump loo bixiyey. hamburgerkan markuu qofka dalbanayo wuxuu leeyahay Trump Burgeraan rabaa. hamburger meesha la dhihi jiray Trump Burgeraan rabaa ayuu leeyahay. rootigana loo soo saarayaa oo istaamka ku dhegan yahay. cunooyinkii marka saasuu magacii xataa ugu daray oo madaxweynaha magaciisi ugu sameeyey. waa Trumpaysan tahay cunadii. ninkan marka asal ahaantiisa wuxuu ka soo jeedaa waa nin carab ah oo u dhashay Jordan u dhashay 55 jir ah. wuxuu degnaa Maraykanka, wax badan oo Maraykanka degnaa. waxaana la yidhaahdaa Iyaad Maxamed Abu Hawa la yidhaahdaa. markii dambe intuu magacaas oo dhan iska tuuray uu iska bedelay wuxuu la baxay Eddie Hawa. Eddie Hawa uu la baxay. intaas iyo ka badan uu ninkan sameeyey. wuxuu sameeyey ololo weyn uu qaaday markii uu madaxweyne Trump kow soo baxayey sanadkii 2016 uu xataa ololeeyey oo dadkii taageerayaashiisa ugu horreeyey oo safka hore ahaa oo wax walba samaynayo ahaa. ninkii isaga ahaa maxaa ku dhacay? waa kanaa ninkii oo ice ee sii wadato oo la gelbinayo sida gabar aroosada oo lasii gelbinayo lasii wado. waa kaasaa waxaa la qabtay sida hadda la ogaaday, gadaal laga ogaaday. ice waxay ninkaas qabatay bishii juunaa la qabtay oo sanadkan 2025. laakiin lama ogaanin oo ma aynan shaac bixin, ma aynan sheegin inay xataa ninka haystaan. waxay soo shaac bixiyeen bishii agoosto hadda ahay inay ninkan hayaan oo uu u xiran yahay ay sheegeen. looyarkiisa marka wuxuu ku doodayaa ninkan. wuxuu yidhi ninkan waa nin taageero ah, waa nin kan ah, waa nin keer ah. marka ninkanay tahay la soo daayo. laakiin nin afhayeen ah oo u hadlay ice u hadlay ciidankaas wuxuu yidhi ninkan waa noo xirnaanayaa ilaa muddan xiraynaayu yidhi. kadib waxaan u dhoofinaynaa dalkiisii. marka wuxuu hadalkiisa sii raaciyey uu sheegay oo kale hadduu yahay taageerayaasha midka ugu weynaa ee madaxweynaha taageeray, haddii kaleba wax farqiya noo samaynaysaa malaha. tan oo kale soomaalida waxay dhahaan wax badso wax beelay leedahay. qisadan qiso waxay noqotay ka yaabisay reer Yurub, gaar ahaan dalka Scotland. boqortooyo Afrikaana waxay ka dilaacday dalka Scotland. boqortooyaa ka soo dhex baxday. waxay dhaheen annaga boqortooyo Afrikaana oo waxaana la yidhaahdaa kubaala boqortooyo la yidhahdaa kasoo dhex baxday dalka Scotland. waxay sheegeen, waxay dhaheen annaga waxaan ka tirsannahay dalkan, waxaan ahaan jirnay boqortooyo weligeed soo jirtay oo intaasoo kumanaano sano ka hor meesha degnayd. laakiin boqortooyada Ingiriiska meesha naga saartay oo dhulkeenana laga dhoofiyey waa hore. laakiin hadda waa usoo noqonnay, dhulkeenan usoo noqonnay. waxaan rabnaa inaan meeshana degnaano. waxaan rabnaa in nala aqoonsado oo aan dhulkeena nabad ku joogno. boqortooyadan Afrikaanka ah waxay ka kooban tahay 3 qof oo arkaysaan. ninkan waa boqorkii tinta ma aqaano waxa laga guraayo iyo in loo samaynayo ma garanayo. ninka waa boqorkii, waxaana la yidhaahdaa muxuu ahaa boqorka waxaa la dhahaa atehe la dhahaa. ninka boqorka waxaa la yidhahdaa atehe.
naagta madaxiisa dul taagan oo wax ka guraysa waxaa la yidhaahdaa boqoradda waaye, waa boqoraddii nandi aa la yidhaahdaa. gabadha gacmaha ka masaajaynaysana waxaa la dhahaa kawra. gabadha gacanta ku dhegan waxa oo dharka gaduudan xiran waxaa la yidhahdaa kawra. kursigaas boqortooyadu ku fadhiya, teendhadaasay ku nool yihiin, meeshaas duuduurkaasayna degan yihiin. teendhaa waxay uga dhisan tahay meeshaas duuduurka ah, waa boqortooyadaas halkaasee kifaaxayaan. boqortooyadan waxay ku nool yihiin meeshaas bannaanka magaalada meel ka baxsan, adiga meelaha duuduurka ah, meesha hadda aragteen duuduurkaasaa teendho uga dhisan tahay, meeshaasay ku nool yihiin. cunno ahaanna waxay cunaan waxa geedaha ka soo go'a iyo wixii ilaahay dhulkaas ka siiyo ay ku nool yihiin. biyaha roobkana waa caban, biyaha roobka iyo meelaha biyaha yaallaan oo maaragta biyaha ay ku soo aruuraan iyo biyahaasaytana way ku nool yihiin. wixii dhulkaas ka baxana way cunayaan, ilaahay wuxuu siiyey meesha ku cunaan. waxay dhaheen marka waa in nala aqoonsadaan u baahannahay, boqortooyadaas jirtaan nahay annaga oo intaasoo qarni soo jirtay. arrinta intaas sii dheer waxay tahay arrinta la yaab kale. dadkan waa 3 qofood oo isu yimid oo qof walba nolol gaara watay oo meel degnaa oo nolol gaara dadkooda caadigaa dad ku dhex jiray oo noloshooda caadigaa watay oo maalin go'aansaday inay boqortooyo intay noqdaan duuduurkaas degaan. hadda gabadha ku jirta meesha oo dharka gaduudan xiran, gabadhan aan idinku celiya, gabadhanayta dharka gaduudan xiran waxaa la dhahaa kawra. gabadhaas dharka gaduudan xiran waxaa la dhahaa kawra. kawra la dhahaa, waa gabar african american ah oo maraykanka ka tagtay, oo cunug yaray dhashay iyadaba maraykanka ka tageen, reerkeedii intay raadiyeen meelay ka baxday la waayey, oo baxday oo labadaas qofood oo duuduurka Scotland teendhada ka dhistay u tagtay, meeshaasay ku biirtay. waaba dhammaatayba, waxay tiri reerkaygii maaragtay reerkii aan ka imid meeshaana igaga fiican, nolol fiicanna meeshaanaan ku haystaa ay tiri. waxay decide garaysay boqortooyadaas inay ka mid noqoto. waxay sheegeenoo kale waxay dhaheen annaga sharciga waddanka u yaalla iyo sharciga ay soo dejisay dowladdan iyo waxaas annaga kuma saqajaanno, waxaas shaqo kuma lihin. annaga waxaan wax ka maqalnaa oo sharciga aan ku soconno waa sharciga ilaaheenna annaga uu noo sheegay. ilaahoodana waa mida iyaga yaqaanaan oo maaragtay iyaga gaar u ah waaye. marka waxay dhaheen sharcigaas keliya annaga noo gaara oon ku shaqaynaa, waxaanan cunaynaaye duuduurkaasaanan ku noolaanaynaa, wixii ilaahay naga siiyaan leenahay. waa kanaa markaana waxay dhex joogaan duuduurkay dhex taagan yihiin, inay ilaahooda baryayaan iyo inay ritual meesha ku samaynayaan ma naqaano. ninki waa kaasaa iyo labadii naagood. halkan gabadhi waatana cunooyin oo waxaa jira oo ay ka helaan duurduurka. waxaasay tahay hadda baakadaha ku jira waa wax dad soo tuurtuureen ama dadka dalxiisayaasha ah oo meelaha dalxiiska ah wareegaya wax ka dhacay ama dad meel maraya wax kasoo heleen. waxaasay soo qaaday waatan u keenaysa boqorkeedii. marka gabadha waxay xisaabsan tahay gabadhoodoo kale u xisaabsan tahay, inkastoo aynan shaqo isku lahayn oo qof walba meel ka yimid oo naagta iyo ninka iyo gabadhaba midba meel ka yimaadeen, laakiin waxay go'aansadeen inay iska dhigaan hal famiil inay isku noqdaanoo naagtii iyo boqoraddii iyo boqorka iyo gabadhoodii oo princessti camal ee iska dhigtay tanna. waa kana cunadii u keenaysaa, boqorkii wuxuu leeyahay adigana noo kariyo xaggaasayta fadhiiso. waxaa ku jira sawirada, waxaa ku jira videoga hadda ma hayo, laakiin iyagoo la wareysanaya maxaa noloshaaniti usoo gasheen la leeyahay, ay leeyihiin noloshan waa nolosha ugu fiican oo aan maaragtay adduunyada ugu jecelnahay inaan ku jirno. marka waa kaasa waxay dhaheen annaga hadda saasaan nahay, boqortooyadaasaan nahay oo weligood soo jirtay, horeyna looga ceersaday meeshan, laakiin hadda waa ku soo noqonnay. waxaanan rabnaa oon dadku u sheegaynaa boqortooyadeenni inaan soo noqonnay, aan soo cusboonaysiinay oo meeshaan degannahay. ciddii rabta waa ciddii rabta inay naga soo qayb gasho oo gacmo furan waa ku soo dhaweynaynaa. ciddii micnaha rabta inay noo soo haajirto oo noo timaado waa soo dhaweynaynaa, gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa, boqortooyadeena ku soo dhaweynaysaa. marka dad badanaa arji qoranayaan u malaynaya boqortooyadaas. dad badanaa laga yaabaa oo qaxootiya hadda inay u qaxaanoo boqortooyadaas aadaan oo magangelyo weydiistaan.